Salaamu calaykum. Magacaygu waa Maxamed. Waxaan jiraa da'da 14, balse waxaan idinla wadaagayaa sheeko igu dhacday markii aan ahaa 9 jir. Waxaan ku hor iibin jirnay aniga iyo walaalkay gurigayaga horteeda waxaanan ku dhisanay dallad isla markaasna waxaan iibin jirnay sharaab. Sharaabkan waxaan iibin jirnay waqtiyada kulaylaha. Sharaabkan ayaa ahaa sharaab aad iyo aad u qabow. Dadkuna way naga gadan jireen. Lacag badan kamaanaan heli jirin balse hooyaday ayaan ku caawin jirnay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan hormaray gaari 2 jeer ayuuna hormaray aniga iyo walaalkay oo iska sheekaysanayna. Gaarigaas waxaa ka muuqatay wasakh aad iyo aad u badan. Gaarigii waa uu hor istaagay. Muraayadan hoos ayaa loo dhigay balse haweeney ayaa ka soo muuqatay waa ayna na soo eegtay xoog. Timaheedu waxa uu ahaa mid markaasi xoog u furfuran isla markaasna isku dhex yaacsan. Waxa ay qosashay qosol iska keenkeena. Waxaa la socday ninkaasi wajigiisa waa uu foorarinayay oo si fiican noomuu eegaynin. Labadoodaba dharkoodu waxay ahaayeen dhar wasakh badan. Waxayna nagu tiri sharaabkan imisa ayaad siinaysiin balse qiimihii ayaan u sheegnay. Waxayna tiri ayaad u iibisiin. Waxaan ku nidhi annaga ayaa hooyadeen ku caawinaa balse waxay tiri hal sharaaba oo koob aad ku soo shubteen iga iibiya. Haweeneyda iyo ninkii la socdayba hoosta ayay wax iskaga sheegayeen balse ma aanan maqlayn hadalkooda. Waxa ay tiri koob cabitaan isiiya. Waanan u soo fidinay balse markii ay damacday inay lacagna siiso waxaan maqlaynay sunuuda shanqadheeda. Laakiin waxa ay soo saartay $5 oo isku dhagan ayay noo soo saartay balse arrinkaas waan ka yaabay. Si lama filaana ma garanayo wajigayga dhidid ayaa ka soo yaacayay. Arrinkaasna ilama qurux badnayn. Waxayna soo siisay $5 balse waxaan ku nidhi annagu kuma hayna lacag baaqiya ama sarif ah oo aan ku celino. Markaas ayay tiri dhib ma laha baaqiga qaata. Gacanta ayayna noo soo fidisay. Waa aan yaabnay isla markaasna dhidid ayaa naga da'ayay aniga iyo walaalkayba. Waan ku soo dhaqaaqnay haweeneydii. Markii aan damcay inaan ka qaado lacagtii, labadeedii gacmood ayay soo wada fidisay. Gacantii ayay i jiidatay. Xoog ayay ii jiidatay balse anigu aad ayaan u qayliyay aniga oo ooyaya. Walaalkay ayaa sidoo kale qayliyay. Waxaanu u dhawaaqayay hooyaday. Waa ay jiidatay gaadhigiina waa ay dhaqaajiyeen balse waxaan isku dayay in aan ka fuqo naagtan. Ugu dambayn waa aan ka fuqay. Dhulka ayaan ku dhacay. Ninkii ayaa ii soo degay. Waa aanan cararay. Hooyaday iyo walaalkay ayaa goobtii soo gaadhay. Hooyaday markii ay arkeen waa ay carareen. Gaadhigoodiina xaggii waa uu ka dhaqaaqay. Hooyaday waa ay yaabtay. Waa ayna fahantay inay ahaayeen dad doonaya inay afduubtaan. Isla markiina waxa ay wacday booliskii. $5 dhulka ayay taalay oo sidii ayay kaga tageen. Maalinkaas wixii ka dambeeyay waanu iska daynay shaqadii markaan gurigayaga horteeda ku qaban jirnay. Daawade haddii adiga sheekadan oo kale hadda ka hor kugu dhacday fadlan isku day inaad nala wadaagto. Commentigana noogu soo qor hoosta. Waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyowgan.